zaynab cabdallah waa hooyo soomaaliyeed oo labadii sano ee lasoo dhaafay shahaadada mastarkii waxbarashada gaarka ee la xiriirta carruurta qabta xanuunka otisimka ku diyaarinaysay jaamacadda st thomas ee magaalada st paul. zaynab waxaa isugu soo beegmay laba farxadood oo kale ah ka qalinjabinta jaamacadda iyo dhalitaanka gabadheeda labaad, waxaana u dhexaysay in ka yar 24 saacadood. daalkii iyo xanuunkii umushu kama aanay reebin zaynab inay ka soo qayb gasho xafladdii qalinjabinta ardayda ee shahaadada lagu guddoomayey. alxamdulilah waxaan dhalay fridaydii 8 habeenimo. graduationkaygana wuxuu ahaa saturdaydii ku xigtay. dhakhtaradeyda la tashtay, alxamdulilah waa caafimaad qabay, beebiyadu caafimaad qabtay. waxaan go-aansaday inaan graduationka aado, way farxad bii ahayd, faamiligana farxad bay u ahayd. zaynab cabdalla magaceeda ayaa loo yeeray waxaana la guddoonsiiyey shahaadadii ay u soo dhabar adeegtay. zaynab waxay u ahayd farxadda qalinjabinteedu mid ay ku ilowday xanuunkii hayay, waxayna maanka ku haysay inkastoo muuqashadeeda munaasabadda qalinjabintu ay dhiirigelin u tahay haweenka Soomaaliyeed. farxad baa ka weyneed xanuunka ay hayay. farxadda awgeed waxaan go-aansaday inaan graduationka aado oo tuso faamiliga iyo Soomaalida khaasatan dumarka inay wax kasta qaban karaan. wax kasta qaban kartaa, xanuun ama xanuun la-aan, uur laho ama lahaanin. waxaan ogaaday inuu cilmiga educationka aad important u yahay. cabduul maxamed waa sayga zaynab cabdalla, waxa uuna aad ugu faraxsan yahay labada guul ee qoyskiisa, walow uu dareensanaa dhibkay mudanaysa xaaskiisu maalinta qalinjabinteeda oo saacado uun ka hor ay umushay. haddana waxa uu xasuustaa waqtigii u hurtay waxbarashada iyo saacadihii ay ku dhafri jirtay akhriska iyadoo xamilo ah. waxaan ogaa xaaskayga labadii sano oo lasoo dhaafay dhibtii ay martay, ama siba sanadkii ugu dambeeyey run ahaantii ee winter ahaa, laba qayb kala aadaysay Minneapolis campuska ku yaala iyo campuska St Paul. marka maanan jeclaysan inaan ka hor istaago maalinkaas farxaddeeda. waana weydiiyey say dareemayso, waxay tiri waan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo xafladdaas weyn, waana ku taageeray. zaynab cabdalla ayaa qorsheynaysa inay sii wadato waxbarashadeeda, waxayna maanka ku haysaa inay isla jaamacadda st thomas ku diyaariso shahaadada PhD-da. waxaa qorsheynayaa biidni illaah inaa PhD-gayga dhammaystiro, inaa community-ga 100% xoog saaro, ina caawiyo waxyaalihii soo baranay, ina runta u sheego, caawimaadu rabaana ina caawiyo, luqad ha noqoto ama iskuulaadka insha allah inaa la joogo oo resourcigas ka caawiyo waalidiinta. zaynab cabdalla ayaa jaamacadda waxaa kala qalin jabisay 8 qof oo kale oo Soomaali ah oo shahaadada masterka ku qaatay waxbarashada gaarka ah ee la xiriirta carruurta qabta xanuunka autismka, kuwaasi oo jaamacadda St Thomas ay siisay deeq waxbarasho. maxamuud mascade, VOA, Minnesota.